aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiyaha xaruntan aanu ka wada shaqaynaynay ee SSC Faysal Maxamed Xasan Falaalug waxa kale oo mahad leh ciidamada qalabka sida ee aan halkan ugu yimi ee walaalahaya ee in badan aan wada shaqaynaynay hadeerna aan dib ugu soo noqday hawshaydii aniga oo soo gutay horena aan wada shaqaynaynay shaqadii aan ugu maqnaana waajibaadkeedii aan soo gutay taas oo ahayd in aan xogta cadowga aan u galo cadowga laftiisii aan ula shaqeeyo sirdoon ahaan oo aan sarkaal la ka noqday taas oo ay kuwa kalena igaga dambeeyaan oo haddana shaqadii halkii ka sii wadaan dhammaan waxay hayaan qorshayaashii annaga noo degsanaa annaga iyo jabhadayada SSC waanuna ku guulaysanay mar dambena waan ku guulaysan doonaa cadowgana araxdaanu ka jabin doonaa haddii ilaahay noo gu garab galo waayahay waxaad nooga warbixisaa gaarigan Somaliland baad kala soo baxsatay jamhadda ayaa la timi sidaad uga soo baxday iyo gaariga la soo baxsatay warbixinagas waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ka siinayaa gaarigan aniga Hargeysa ka soo kaxeeyay maamulka Somaliland ee Muuse Bixi baan uga shaqeynay sarkaal u shaqeynayaan aha anigoo tan sarkaalka ah iyagana ii doortay taliyihii ay u soo magacaabeen sirdoonkan u soo kaxeeyay intaana 2 sanana iyagaan ugu waday shaqada waan la hayay kuwa kale oo jabhadayada ahna way nala shaqeynayeen oo dhinac kale ah oo qaybo kale ka shaqeynaya labadaasna haddaanu ka shaqeynaynay waxa aan soo gutay dukumentiyadaydii iyo qalabkaygii iyo intii aniga la xil saaray iyo waajibaadkaygii ilaa iyo gaarigii waan soo dhamaystirtay waayahay dadka ka dambeeya ama Somaliland u shaqeynaya fariinta u diraysan maxay tahay waxaan leeyahay ka caajisina hawsha sidii aynu ku ballanay u wada kuwa kale aan ila midka ay ee walaalahayna waxaan sheegayaa war cadowga araxda ka jabiya والسلام عليكم waxaanu halkan ku soo dhaweynay sarkaalka u shaqeynayay ay iyagu shaqaale ka dhigteen laakiin se uu ahaa sarkaalka u shaqeynayay jamhadiisa kana tirsanaa horeyna uga mid ahaan jiray intii uu ka maqnaana shaqo ku maqnaa waxaan aad baan ugu bogaadayna sida waajibaad kale oo shaqadii loo idmaday uga soo baxay halkan waxaan uga dirayaa canaan dhulbahantaha qaybaha canaanan mayno shaqadooda haya kuwa aan shaqadooda hayn ee cadowga u shaqeynaya ee ku maqan in ay iskaga soo baxaan oo sidaa araxda uga jabiyaan raggan halkan nala joogaaba uga soo jabiyay intaas ayaan iyagana u diray بسم الله الرحمن الرحيم مقال كان هذا أركيسان وسودويني بوجادين سركال عبد الرحمن أحمد حرس شاع وحو رمتي عبد الرحمن قاطي تاريخ wiilashan liito dhulbahantay ilaa iyo inta daraawiishta ah oo naftooda u hibaysay intii ku shahiiday iyo inta hadda u taagan mooyaane aan taariikhda aynan qaadan wiilasha dhulbahantay oo mas'uuliyadani saaran tahay inay la dagaalamaan cadowga taariikh aynan hore u qaadan baa cabdiraxmaan qaatay waxaanu ku bogaadinaynaa geesinimada iyo halyeynimada iyo taariikhda runtii dheer oo uu hadafka kan u taagnaa naftiisana u hibeeyey
waxaan adaga u sheegayaa runtii cabdiraxmaan halkan sarkaal bukaa cadowgan liita oo ummadda Soomaaliyeed cabdiraxmaan barnaamijkan wuxuu ka ahaa sarkaal shaqadiisii buu gutay waxayna gaadhay xilligii loogu talagalay inuu ka soo baxo aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa geesinimada uu qaatay shaqada qarankiisa ummadda Soomaaliyeed uu qabanayay reer SSC gaar ahaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waa ugu hambalyeynaa hambalyo cabdiraxmaan taariikhda ku qori doonta kuwa aan shaqada ku maqnayn laakiin cadowga baaqiga kuwa ku dayda cabdiraxmaan ku dayda barnaamijkan ujeedkaan kaga hadlayaa intaas weeye cabdiraxmaan ku soo dhow waa sarkaal kaan magacaabay muuqaalkan gaariga kanina waa gaarigii taliyaha sirdoonka gobolka Sool iyo xafiiska gaarigu shaqaynay dokumentigiisa iyo wixii cabdiraxmaan oo iyagana sarkaal u ah dawladnimadu waa sirdoonka marka cadowgani inaynan waxba hayn iyaga iyo kuwa ka dambeeya toonna runtii taas cadaynaysa